hadlaaya waa Farxaan Yare iyo xaaskiisa hore ama xaaskiisa ma aqaan kulli sida xaaladday tahay rasmi rays hore naga hadlay hal mar وعن أول صاحب الهانتي بمير والبقى جوكتان فضل هذي تمركي كود إن سابقة فضل نقص بيرو كم نوع كمناك كن أوقف السيدة جوكتان نلا السعودة هل كنا نقلا السعودة مر والبقى وقال لا يسيدو كل برنامج تياد لين هل كان كسب باهينه هذا صاحب بالبريه وجود بواحد بريه برشة كالسعودة قف كستو جرانيا أرين كرسم رازي يسيدو كل فرحان يرى culimada ugu waaweyn ee Soomaalida dhexdeeda kuwaas oo aad looga yaqaan ayaa ka hadlay arinka Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmi rays hadaba si kastaba ha noqotay arinkan wuxuu ku soo beegay kadib markii Ibrahim bulshada uu qabsaday arinkani maadaama uu noqday mid silsilada kolba maalinba wax la soo deynayo hadaba labadan lamaane hore isku qabay Farxaan Yare iyo sidoo kale rasmi rays ayuunba noqday midba mid intuu galka seefta kala baxo runtii mid walba wuxuu siruhu ka hayay kan u soo bandhigo baraha bulshada si kastaba noqotay wiigan u baahan markii rasmi rays ay u soo jawaabtay Farxaan Yare taas oo runtii ka hadashay ceeba aad u tiro badan sidoo kale Farxaan Yare oo dhinaciisa isagoo ka farayareysan ayuunba soo bandhigay codad iyo sidoo kale muuqaalo la yaab leh hadaba sidoo kale rasmi rays iyo sidoo kale Farxaan Yare dagaalkan ka dhex qarxay ayuunba ahaa mid ay hore isku afkaran waayeen maadaama calafkooda dhamaaday si kastaba ha noqotay arrinkan oo kale in baraha bulshada lagu soo dhex tuuro ayaan ahayn mid wanaagsan laakiinse haddaba yimiya laakiinse dhabta xaqiiqada ayaa taagan in ka arrinkan ay ka xaliyaan lamadii family ay ka soo horjeedaan taasoo markii hore baraha bulshada loo keenay in ay ka xaliyaan dadka caanka ah sidoo kalena ay halkaa kaga aragta dhiibtaan qofka khaldan qof waa khaldan iyo sidoo kale in uu rasmi rays iyo sidoo kale Farxaan Yare haddaba culimada ugu waaweyn ayaa markii arrinkan noqday ka hadlay si kastaba ha noqotay culimadan ugu waaweyn oo ku jira runtii baraha bulshada sida Facebook iyo sidoo kale YouTube kuwaas oo ku soo baahiyay maalin walba muuqaalo muxaadarooyin aad u cajiib ah si kastaba ha noqotay arrinkan ayaa gaaray meel walba oo kasta oo Soomaaliya ku hadla luqadda hadaba arrinkan ayaa noqday mid sidoo kale uu Farxaan Yare in uu marun kala soo baxo shaashadaha sidoo kale Facebook in uu ku soo baahiyo muuqaalo runtii iyo sidoo kale sawirro private ah kaas uu ka hayay rasmi rays si kastaba ha noqotay saaxiibayaal arrinkan ayuunba noqday mid cajiib ah hadaba arrinkan oo kale lagama adkeysan karo maadaama gabadha rasmi rays ay tahay gabadha Soomaaliyeed sidoo kale hooyo Soomaaliyeed tahay in arrinka Farxaan Yare ku sameeyay noqotay mid aad u xun si kastaba ha noqotay culimadan ka soo hadasha arrimaha baraha bulshada iyo sidoo kale culimada ugu waaweyn uu ka mid yahay Sheekh Albarbraawi hadaba sidoo kale iyo Sheekh Dulmidiid in kasta ay muxaadarooyinkiisa sidoo kale la yaab lagu jeedin ka mid yihiin arinta dabcan aan doonaa inaan ka hadlo waxa weeyaan tii hore aan laga hadlay ayaan daba socdaa waxay tahay labada qof ee isqaba maxaa ka dhaxay asal ahaan markay kala tagaan maxaa ka dhaxay sidoo kale caadiyan xuquuq ayaa jirta qof walba ay tahay inuu ilaaliyo xilliga la wada joogo iyo xilliga marka la kala tago walaalaha arintan dabcan dhaxmaraysa social media-na sida u dhaxyaacaysa waxaan ka hadlayaa waa Farxaan Yare iyo xaaskiisa hore ama xaaskiisa ma aqaan kulli sida xaaladday tahay rasmi rays hore naga hadlay hal mar laakiin tan waxaan doonayaa tala guud ahaan ayaga iyo inta Soomaali ah ee arinta noocan oo kale ah samaysay rabtaa inay samayso niyoonaysa inay hadda samayso maxaa yeelay waxaan ognahay hadda xoog iyo wuxuu ku soo haray social media waxaad u malaysaa dadkii maxkamad inay u arkeen social media laakiin waxaan kuu sheegayaa ku leeyahay qof walbo social media horta maxkamad maaha kow labo social media waa un ceebtaadoo bannaanka aad keentay tiri halay falanqeeyo hibilow hiblaayo warkay qaad igu xadgudub waxaad doontay igu samay shalay cid aanan haba yaraatay arrimahaada aan waxba ka ogeyn ayaa adiga afkaada isku dilaya adiga afkaada ka sheegaya wax alla wixii idin dhaxmaray xaaskaada ama adiga afkaada ka sheegay wax idin dhaxmaray ninkaada adiga istoogana macna waa qof bistoolada soo qaatay samada iska toogto kale xaqiiq weeyaan walaalaha qaaliga khaasatan oo hadda aan magacooda aan halkan ku soo qaaday waa rasmi iyo ninka Farxaan hore ama hadda Allahu a'lam ma garanayo ayadoo wixii way furay asana wuxuu yiri saad aragteen say ahaataba walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala haydin sharfo dambigina ha dhaafo ceebtiina inta aad hadda
labadiina aad isleedihiin isfadeexeeya oo kanna uu leeyahay ayada wax gaarsii adna aad leedahay asaga iska dhiciyo wax gaarsii ummadda keliya idinma yaabayso bal malaa'iga ayaa garbihiina saaran qof walbo neefsanaaye noolna sidaas oo kale maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa la qoraya wax walbaad sheegtaan wax walbaad ku hadashaan xadgudub qofka uu isleeyahay qofka isaga dhici oo dabcan ku aflagaadeynayo sharaftiisa uu ku banaysanayo weliba ogow waxaa kala kulul ma taqaanaa qof bannaanka aad kala joogtaan oo aadan isgaranayn ama saaxiibaad ahaydeen waa taqriiban dadkaasi marka la fiiriyo way kala duwan yihiin waxaa laakiin ka sii daran oo ka kulul aad iyo aad nooga kulul qof aad nolola wadaagteen qof aad isu noqoteen mar dhar hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna buu leeyahay subxana wataala dhar ayay idin yihiin xaasaskiina adinkana dhar ayaad u tihiin yacni hal ayaad tihiin marka qof aad mar soo wada noqoteen hal qof nolol wadaagteen qosasheen faraxdeen xaaladiina ay noqotay mid hal ah in maanta halkaa iska xagataan ummadoo dhan saa idin daawanay sida videoga iyo markaa shaleemooyinka iyo riwaayadihii oo kale uma qalantaan dabcan adinka un ma ah walaalihii arrintan sameeyey umaynan qalmin adinka uma qalantaan kuwa doonaya inay sameeyaan uma qalmaan arrinta aan doonaya inaan cod dheer ku dhaha waxay tahay walaalayaal waxaad ogaataan Soomaaliya waxaad ogaataan qofka doonaya social media inuu ka raadiyo inuu qof kale ku weeraro kadibna uu sharaf ku helo ama asaga la taageero waxaad ogaanaysaa walaal waxaan kula waxaad ogaanaysaa qof walba tahay sharaf meesha ma taalo waxa taala sharaf daro waxa taala dhibaato waxa taala ceeb waxa taala fadeexo subhanallah ilaahay nama fadeexeeyo ilaahay ceebeena noo asturo walaalayaal qofkan iska dhici qofkan iska qabo hangool ku qabo intaad isleedahay adiga istoogan wallahi nasaxiiga tahay nacamha nasaxiiga tahay arrinta noocan oo kale ah waa arrin la yaab badan maxay hadda waxay jiitamaysaa muddo jiitamaysaa hadba intuu qofkan soo hadlo oo kana soo jawaabo tanna ay soo hadasho kana soo jawaabo yani waxaad arkaysaa intaasoo shayaadiin inay ka faa'iidaysanayaan shayaadiinta horey waxaan usoo sheegnay ma ahan shayaadiinta la xiray oo dhan sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay soonka ma ahan dhammaantooda maradatu shayaadiin kuwadii waaweynaa ee madaxa adkaa ayaa la xiray ama kuwa yaryaraa wayaan kuwa hadda sidaa noola daayo kuwa yaryar ee tabcaanka ah wayaan kuwa dadka qaarkiisa iska haysta shaydaan yar tabcaan ah ha ku lebdo ha ka adkaado soo sharaf dara maahan ilaah baa kugu dharshay ka adkow ramadaana lagu jiraa bishan waxyaalaha ay bilaha kale kaga duwan tahay waxaad ogtihiin qofkii shalay aan hanuunsanin ayaa soo hanuunaya